بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوتيوب كداون إنسان وعالم تكنولوجي بيج waxaad kaloo naga daawan kartaan ala socon kartaan page-kan ku leeyahay Facebook-ga Shaafic Axmed Macalin wixii su'aalaha qabtaan waxaad igu soo weydiin kartaan bartaan ku leeyahay Instagram-ka Shaafic Axmed Macalin baad igu soo weydiin kartaan wixii su'aalaha qabtaan ama wixii idin shaqeyn waaya haddii alla ka dhigo qaas insha Allah ku wada socon doona haddii la yiraahdo casharkan maanta idahay waa cashar runtii aad uga duwan casharadii hore aynu halkan soo gelin jirnay waxaan wadnaa iminka taxane ku saabsan barnaamijka xisaabaadka ee loo yaqaan QuickBooks barnaamijka xisaab uu socon doona laakiin cashar aan kamid ahay barnaamijkaas isla eegi doona maanta oo dhigan doona waa koorso insha Allah waan soo wado in kasta aan YouTube-ka ka dhigin laakiin meel kale aan markaa idin sheegi doona insha Allah oo loo yaqaano koorso loo yaqaan Certified Ethical Hacking loo yaqaan laakiin casharo googoosan ka soo dhigi doona si ardayda jeclaatay insha Allah koorsada aan meeshii koorsada ku dhigi lahaa ama si aan dhigi lahaa insha Allah aynu isla eegno haddii alla ka dhigo casharkan waxaa loo yaqaanaa qaabka ay la soo degi karto website kasta qaabka la soo degi karto website-da template-ka waad la soo degi kartaa imika Google dadku qorto website kasta ama website aad doonaysid template ku darto website-kii oo template la soo degaysa laakiin imika la soo deginaa maaha template maaha waa website shaqeynaya oo company leeyahay oo ayaa la soo degi kartaa dibadda ku soo kartaa edit oo haduu company inta badan website-da HTML-ka oo bedeli kartaa iyo CSS-da JavaScript oo bedeli kartaa markaa waxaan sheegi doonaa qaabka loo bedeli karo website-da qaabka loo bedeli karo iyo qaabka loo soo dego oo aad u xasaasiya runtii marka waxaan ku tijaabin doonaa haddii la ka dhigo company-da ku tijaabin oo company-da dhaawac weyn baa laga yaabaa gaadho casharkana waa education purpose weeyaan only balaha inaan leeyahay dadka ku waxyeelay laakiin in qofku aqoon ahaan u dhigto ayaa aad iyo aad u muhiim ah marka kambaniyada waddankeena Soomaaliya kambaniyada ugu weyn baa ku tijaabin doonaa haddii la ka dhigo bal qaabkii loo sameyn lahaa in website-da aynu la soo degin kambaniyada ugu waaweyn waddanka gaar ahaan kuwa ka shaqeeya dhinaca IT-ga ayaynu insha Allah isla eegi doonaa waxaad ogaataa in la soo degaasi uu kaliya shubta ku xiran weeyaan hadduu tusaalahaan oo kale domain name-ku yahay ama .com ama .net ama .org uu yahay wada soo degi kartaa laakiin qaar kamid lama soo degi kartin oo kuwa web host-yadu ay kala duwan yihiin web hosting-ku kala duwan yahay kuwaas server-ka runtii qaar badan baa security-gu aad u sareeya laakiin kuwa inta badan Apache server uu run garanayo maadaama Apache server iyo serverada ugu caansan ee web hosting-ka ugu waaweyn bal kaasin eegi doonaa qaabka aynu download la soo degi karno marka haddaynu imika dhinacan iyo isla tagno browser-ka oo aan new tab furano halka imika software-ka la soo degin ay naga caawin doono waa course-ka insha Allah course-ka hacking-kana insha Allah waa qayb kamid oo ku dhigan doonaa laakiin imika hordhac uma ku saarka doonaa hadda la dhigo waxaan tagaynaa google.com baan leeyahay .com google.com kan soo qoro halkan waxaan ku qorayaa http rack baan leenahay http rack download baan leeyahay wuxuu sameeyaa waa http rack website copier website soo copy-yeynaya waxaan leenahay http copier download ku sameeyo marka download marka soo link ugu sareeyo oo soo dhigay linkiyada waa iska hubiyaa waa http.rack.com baa soo dhigay link ugu sareeyo ku dhufanayaa version-ka u dambeeyay la soo degaya iminka dhinacan waxa lagu talagalay Windows 10 iyo wixii ka sareeya lagu talagalay waa kan waxa ku dhufanaa ultimate site waxa ku dhufanaa click C waa last version waxaad aragtaa download-kiisu inuu socdo wax yar buu qaadanaya website aad iyo aad u fudud sumadiisu waa .exe waa sumadiisa iyo format-kiisa inta markaan sameeyo download-ku uu socdaa installation-ka sameynaya aniga imika uu ku jira waa halkan yaala waa kan http rack website copier bal waxaan isla eegi doonaa hadda la dhigo balan soo kicino double click C double click ka soo oo ku shubaysaa waa nagas ku shubay installation-kiisu waa aad buu fudud yahay aniga ugu jira laakiin waa nagas weeyaan hadhow tolo waxaad ku isticmaali kartaa waa open source offline browser weeyaan hadhow tole shaygii ama aad soo degtay offline ahaan baad ku isticmaali kartaa offline ahaan baad sawirradii kala duwan wixii uu ku soo dejinaya wax alla wax hambeynaya ma jiro bal marka inta halkan tagno waxaan tagi doonaa website-ka aynu doonayno inaynu copy ku sameeyno waxaan sheegnay in company weyn aynu ku sameyn doono hadda laga dhigo company-da weyn oo de runtii de dhinaca IT-ga oo runtii security-goodu aan isla wasareeya
qaybka kamida waxa weeye telesom.net domain name-keedu waa .net waxaad isku mid .net iyo .com ismadaha raaco waa isku mid dhamaan uu koobiyin karaa inta baan leeyahay qayb waxaan joogaa website-kii Cambridge loo yaqaan telesom aan joogaa waa kan haddaba si aynu u koobiyeyno website-kan waxaan tegaynaa link-ka u sareeya double click baan siinayaa dhammaan highlight baan saaraya control plus baan la soo koobiyey markaad koobi inta ka soo qaato waxaad leedahay halkan naqasti aan soo kicino project waxaad bixin leedahay telesom baan bixinaya category waa maxay waa website salaande website marka yiraahdo halkee la dhigaya waxa la desktop-ka idhig oo ka bedeli kartaa waxa la desktop-ka idhig user-iska magaca desktop magaciisa waxaad u bixisaa /forward raac telesom bixi telesom mumbo inta marka samayso waxa la naqasti marka soo naano ka waxa dhigaysaa URL-ka baad halka dhigaysaa URL-ku waa keen soo koobiyeysanay waa kan waa intii aan halka soo koobiyeysi weeyaan control plus c baan leeyahay ama right click oo koobi ka soo qaad oo isku mid halkan marka imanaya dadna halka waxaan dhigayaa URL-ka right click baan leeyahay best no best kale set options oo halka leedahay waxyaabaha halkan ka xusano waxa kamid ah inaad kordhiso scan-ka oo kale sumadahaas oo kala duwan u diinaysa sumadahaas oo fiican yihiin aan diin karna limit-ka hadaan tagno waxaan halka ka dhigaysaa imkaan halka xigtay 2500 bayta xaddiga u sareeya weeyaan transfer rate-ka marka adiga waxa laga yaabaa in halkaas ay ku bedelan tahay 2000 tahay marka waxaad ka dhigtaa xaddiga u sareeya la gaaro imika haday sidoo kale ku tahay 2000 iyo tusaalahaan ay ku tahay 2500 ama ay tahay 10000 ka xaddiga u sareeya ka dhig waa maxay 150 kun ka dhig xaddiga u sareeya ka dhig halka dabadna waxa leedahay okay intaas ma halka ka bedelaynaa dabadna ugu dambe waxa leenahay naqasti ugu dambe waxa leenahay finish baan leenahay soo dhamee wuxuu qaadanayaa xogaa waqtiga ayuu qaadanaya marka waxaan sugi doonaa haddii la dhigo xogaa waqti kadib markuu dhameeyo waxaad aragtaa iminka https wuxuu ku shaqeynayaa sidoo ku shaqeeya https waa portcode wad garanaysaa waa port 443 haddii ku shaqeeyay http oo iminka inta laga sii baxay waa port 80 iminka inagu waa u dhameeyba wax yar buu qaatay buu dhameeyay dadna waxa leenahay finish markuu dhameeyo bal iminka hadaba soo xidho halkan desktop-kan dhigay aan soo xidho desktop-ka inooga eega halkan desktop-ka waa kan telesom baa ku qoray double click si iminka telesom internet-ku iminka waa shaqeynaya laakiin internet-ka iminka hadaan xidho oo off gareeyo offline baan ku isticmaali karaya dadna waxa off gareeyo waad aragtaa website-ka dhan baa soo degay index-ka waad aragtaa index-ku waa shay koowaad ee leeyahay soo kaco waxa leenahay bal index-ka fur wasugayna index-ka markuu soo furo in waxa ka soo kacaya waa sida user-iska desktop ka soo kacaya waxa leenahay telesom ku dhufo waxa aragtaa iminka waxaan isticmaalayaa website-kii telesom baan isticmaalayaa soo ma aragtaa halkan oo kale waxa ku qoran halka laga soo kicinayo oo kuma qorna telesom.net kuma qorna waxa ta wasida user-iska magacaale aasi offline baan isticmaali doonaa runtii waa scary way aasi offline baan isticmaali doonaa marka haddii aan doonayo runtii wax ka bedelo oo edit gareeyo waan sameyn karnaa imka right click nidhaahno oo aan taama software application loo yaqaan notepad kan baan tagaya xalinay notepad application-ka soo fureen tusaalahaan application ka soo furo waan ku edit gareyn karaa waxay hadii application-ka isticmaalayso notepad kambaliyada editorada kala isticmaalayso kuwan oo kale ka soo qaadano soo jiidan soo dhig su'aalaha index soo kale soo jiid dadna kan soo dhig ku sii dhaxdaa waad aragtaa command-kii ladii oo dhan kuwa command-nadii oo dhan kuwa soo maragtaa marka 10 maanta kooban ayaa dila wadaagay 10 insha Allah ethical hacking-ka aan ugu talagalay googos bay noqon doonaan si ardaygu cost of good uga qaato hadii la ka dhigo xitaa si doona hadii la ka dhigo Linux waxyaabo badan lagu isticmaalo hadii la ka dhigo gaar ahaan Kali Linux waxyaabo badan lagu isticmaalo hadii la ka dhigo insha Allah oo dhinaca hack ku saabsan hadii la ka dhigo marka koosta full-keeda markeedana ku hadli doona horta iminka googos-ka insha Allah isla eegi doona waxyaabo kale waxa kamid ah iminka intii runtii lockdown ama COVID-19 ku dhacay ayaa waxa aad iyo aad u soo batay dadka hackers-ka aad u soo batay dadka hackers-ka ayaa soo batay virus-yada dadka sameynaya aad soo batay bal marka payloads-ka aad soo batay
waxyaaba payload waxaa loo yaqaanaa virus translateska loo yaqaano waa payload in la sameeyo dabeedna sawir lagu soo saaro dabeedna sawirkan waxbaa ku maldahan xagga dambe kaga jira ku lifaaqan marka insha allah waxyaaba aada u fara badan ayaynu isleegi doonaa waad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu